عيد مبارك أخيارتا قيمها بدن channel كان كحوران وحان الله يهي عيد ونكسن ميل كستو دافها الدنيا داد كتشوكتا قارهان أخيارتا قيمها بدن سيدا تشوكتا دا يقحوران وحان سلاد عيد دا كلا سو قيب قلي ددوينها مقالة هرقيسا وكنتو كان يي ميد كميدا قرامة واوين مقالة هرقيسا كويالا ددوينها ايام موجين يي ودكا أركيسا وجيدو دا فرحات يرين رين iyagoo halkaasi ku tukaday salaada ciidal adxada haweenka ayaa iyaguna dhankooda xagga dambe ku tukanayay salaadan ciidal adxada iyagoo soo daadahayay ama soo kaxeeyay caruur aad u tiro badan garoonkan lagu tukanayay salaada ciida ayaa run ahaantii dadweyne fara badani ay isugu soo baxeen sida muuqaalka droonta aad ka arkaysaan haddaba muuqaalka xagga dambe ay waxaad ku arki doontaan dadweynaha oo aanu wareysanay dareenkoodana aanu weydiinay bal siday shucuurtoodu tahay fadliga munaasabadda ciidda weyn ee ciid al-adxada waxaanu wax ka weydiinay madax dhaqameed aqoon-yahan iyo macallimiin oo halkan aanu ku wareysanay goobtan salaada lagu tukanayay haddaba fadlan muuqaalka like ku dhufo si aad muuqaalkani u gaadho dadweyne aad u tare badan sidoo kalena daawade ama akhyaarta qiimaha badan ee halkan igala socda waxaan weydiinayaa barta ay ku ciideen haddii aad dalka joogto iyo haddii aad dalka dibaddiisaba joogto waddankee iyo magaaladee ayaad ku xustay munaasabadda weyn ee ciid al-adxada ilaahay khayrkeeda hayna siiye iyo ayaamihii barakaysnaa ee aynu soo soomaynay haddaba muuqaalka iyo dadweynaha magaalada Hargeysa ayaan idin kala bixi doonaa iyagoo inooga warbixin doona ama inoo sheegi doona dareenkooda ku aadan munaasabadda ciid al-adxada iyo sida ay u hambalyanayaan ehelkooda fariin u dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta in ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dulqaado dhibta haysata waxaan kaloo ilaahay inooga baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu abaaraha inaga soo jebiyo abaar adag baa ina haysata laakiin ilaahay aynu noqonno subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa alla badiyo taasaynu kaga baxaynaa abaaraha iyo dhibta ina haysata insha allahu tacaala waxaan kaloo iyana fariin halkan ka dirayaa aan leeyahay nabadgelyadu waa shay qaaliya oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo dardaarmay ama inoo sheegay in ay amnigu ka horeeyo iimaanka haddaan amni la helin iimaan ma jirayo salaadi ma jirayso meel la isugu imanayaa ma jirto alxamdulilah ilaahay baa mahad ku leh intan iyo inka badan in ka yar oo toono isu iman karta meelaha qaarkood dad inaga xoog iyo xoolal badan ayaa jira ilaahay aynu ku mahadnaqno ilaahayna haynoo sii siyaadiyo ha laguna dadaalo nabadgelyada oo alla yooda ilaashado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan shacbi weynaha Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan leenahay kullu caam wa antum bikhayr waxa kale oo u ducaynaynaa dadweynaha reer Soomaaliland oo leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka saaro abaaraha iyo biyo la'aanta jirta meelaha qaar ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryayaa inuu roob iyo madar lagu qabowsado oo khayr badan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu shubo ciideedana ilaahay subxaanahu wa tacaala hay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxa kale oo fursadan uga faa'iideysanayaa inaan u duceeyo walaalaha reer Falastiin reer Qasa oo leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagana ha ka dulqaado dhibta iyo colaadaha ay ku hayaan kufaartu ay ku hayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u hiiliyo nasrigiisa iyo guushiisana Allah siiyo baan leeyahay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar maalinta waa maalin weyn waa maalin muslimiinta dhammaantood ay ku ciidayaan waxaan jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantood aan u rajaynayaa amni bashbash iyo barwaaqo dhammaantood waxaan salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka golayaasha wasiirada golayaasha waxa weeye baarlamaanka kuwa guurtida iyo kuwa deegaanka intaba waxaan leeyahay sanadkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu gaarsiiyo ammaan bashbash iyo barwaaqo salaadii ciid al-adxaa degmada maxamed mooge mujtamacii ku noolaa haddaanu nahay alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay baynu marka hore iyo mar labaad iyo mar saddexaad baa mahadnaqaynaa mar saddexaadka waxaanu hambalyo u dirayaa dhammaan shacbiga islaamka
gaar ahaan shacbiga jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan shacbiga caasimadda hargeysa gaar ahaan degmada maxamed mooge waanu shacbiga degan ka mid nahay ilaahay bayna soo gaarsiiyey maanta waa maalin weyn waxaan halkan dardaaran ka soo jeedinayaa in ubadka aynu dhallay aynu la soconeysha ku hayno maadaama daragis badani jiro maadaama fasahaad badani jiro waalidiinta waxaanu soo jeedinayaa in ubadka isha lagu hayo oo ubadka isha la raaco oo ubadka laga warhayo waxbarashadooda caafimaadkooda ogaashiyahooda taa waalidkaan farayaa talabaad waxaan farayaa inaynu midnimo wada jir iyo isku calool aynu kaga baxno xaalad kastoo inagu timaada ayaan ka soo jeedinayaa halkan waxaan ciidda hambalyada u dirayaa dhammaan shucuubta islaamka gaar ahaan reer somalilan waxaan halkan salaan uga furayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo golihiisa wasiirada waxaan leeyahay ciideeda ilaahay bashbashii barwaaqaan u gaarsiiyo walaalahee falastiin aan ciidinee dhibaatada ku socotana ilaahay dhibaatada ha ka dul saaro qof kastoo islaam oo dhibaato haysatana ilaahay dhibaatada ha ka saaro